mar walba wuxuu leeyahay anu addoon ilaahay baan ahay ilaahay baan amarkiisa mar walba qaadanaya sidii abubakar as-siddiiq radiyallahu anhu kharaashka ayaa gulaamkiisii kharaashka u keenayay ayaa cunto u keenay maalin markaasuu abubakar cuntadii luqmad markuu ka baday ayaa gulaamkiisii baa ku yidhi yaa khaliifata ya abaabakar awal waad i weydiin jirtad odhan jirtay cuntada halkee ka keentee maanta waad iska cuntay hamaad i weydiisay markaasuu xaggeed ka keentay zaman jaahiligii dad aan u soo faaliyey faal oo mushqaayad aan ku lahaabaa maanta mushqaayaddii isoo siiyeyoo cuntadani markaa mushqaayaddii bay ka timid dib buudhi abuubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq farta saasuu farta afka u geliyey markaa buu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu yidhi yaa abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacdee joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi ma anoo xadiidkii nebigeenna maqlay calayh salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami faannaaru awlaa bihi naar jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku koro buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaan luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unba xaaraana bay ku odhan soomaalidu imanka gaajada unba xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta iminka iska dhegaystaan haddii loo sheego la yidhaha war waxaa diintu ma oggolan wuxuu ku odhanayaa ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay ayaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u geli haddaad xor tahay musqushaa gelina qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karo kulligeen wada bullaacad socotaanahay bullaacad socotoo lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adhi iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa ina asturay mooyaane nin walba halkaa waxa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka warran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasay bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaan oo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna kana maanta war balorda musqusha gal baa odhan lahaa ad waxbaa kaa soo waray ziyaadee ilaahay laakiin waa sabtaa